shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhibaato ka jirta dawlad deegaanka Soomaalida oo naloo sheegay dad hilal u kalsoon yahan ka helnay in meeshaas dad Soomaaliyeed oo degan degmada la yiraahdo Laab ama tuulada la yiraahdo Laab in dhibaato loogu geystay dadkaas waxaan ka cabanaynaa mushkiladaas inaysan xaq u lahayn waxaan gaarsiinaynaa cabashadaas dawladda Itoobiya federaalka Itoobiya dawlad deegaanka madaxdeeda ummadda kale oo Soomaaliyeed oo dhageysan doonta dhammaan beesha caalamka meeshaas waxaa laga sheegay dhib fara badan in lagu hayo dadka halkaas degan xasuuq loo geystay lagu xadgudbay xuquuqdoodii degaan iyo mideedii Soomaaliyeed iyo midii maaragtay muxuu xaq u lahaayeen oo dhan marka waxaan leenahay waxaan cambaarin dusha uga tuuraynaa dawlad deegaanka Soomaalida iyo madaxdiisa intaba oonan ka reebaynin madaxweynaha Mustafa Cagjar marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dhibaato halkaas ka soo gaartay waxaa lagu duudsiyay xuquuqdooda aasaasiga ahayd waxay ku waayeen noloshoodii dad badan ilaa waxaan maqalnay shalay iyo daraadba inuu weerar ku socday ay dhinteen dad gaaraya 30 qof waagana ciidamada lagu daabula dhibkaasna waxaa geystay dawlad deegaanka Soomaalida madaxdiisa iyo qaasatan ciidamada la yiraahdo New Booliska marka dhibkaasaanu ka cabanaynaa waxaan nahay dadka ay ku abtirsadaan waa dadka la yiraahdo hawiyaha ka xishoon mayno dhibkaasa loo geystay waxaan leenahay hadii arintaas ay joogso diido saameynay ku yeelan doontaa dawlad deegaanka Soomaalida iyo meelo kaleba marka waxa dhibkaas waa inuu ka joogsadaa dadkaas shuruud la'aan waa in loo joojiyo xabadaas iyo dagaalkaas iyo xasuuqaas waxaan ugu baaqaynaa dawlad deegaanka Soomaalida iyo madaxdiisa oo u sareeya madaxweyne Mustafa Cagjar in laga joojiyo dhibtaas dadka halka degan oo meesha la yiraahdo Laab degan oo laga barakicinayo deegaanadoodii oo xoog loogu adeegsado ciidamada la yiraahdo New Booliska arintaas oo arin maaragtay Soomaalinimada ka soo horjeeda oo bani aadamada ka soo horjeeda oo ka soo horjeeda sharciga caalamka intaba way tahay marka waa diidanahay waa ka soo horjeednaa waxaan leenahay ma aqbali doono intaasaanu leenahay waxaan la iga dambeeyo doona dad badan oo ku hadlaya afkooda waana mahadsantiin wabillahi tawfiiq